السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال بان weydiinaya dadka tagay Sacuudiga say cumrada u soo sameeyeen ama xaj u soo sameeyaan waqtiyada kuleylka fara badan oo Makka uu ka dhacayo xaraaradu ama kuleylku gaaro 40 iyo waxa ka sareysa ma isweydiiseen sababta marka hor fadhidaan Kacbada khudbada dhageysanaysaan ama aad ducaysanaysaan ama foodiina adhigtaan dhulka si u sujuudaan sababta aanadin kuleylkan fara badan ee dhacaya marka aanadin u dareemin oo marmarka ku fadhidaan ama ku sujuudaysaan qabow badan iyo naxariis badan oo dareentaan jawaabka su'aalkaas waxa garanaysaan markan sheekadan idin dhameeyo sheekadu waxay ka bilaabanaysaa ama jawaabka su'aalkan idin weydiiyay wuxuu ka bilaabanayaa nin injineer oo dalka Masar u dhashay oo leeyahay Maxamed Kamaal Ismaaciil ninkaas ay wuxuu ka shaqeynayay mashruuca ballaarinta Xaram al-Makki al-Shariif sababtu waxa weeyaan dadka cumradii xajku imanayay ayaa waxa ku yaraaday xaramkii Makkiga ayaa ku yaraaday marka waxa lagu aansaday in la ballaariyo si dadku dawaafka ay u dawaafaan iyagoo aan ciriiri dareemin iyo dadka muctarimiintu ama xujaajku markay imaadaan marka aan ciriiri dareemin ninkaas oo ka shaqeynaya qandaraaska ballaarinta xaramka Makkiga ayaa fikrad ba maskaxdiisa ku soo dhacday wuxuu is iri dadkun kuleylkan farabadan Makka ka dhacaya dadku markay sujuudayaan ama ay marmarka dhulka ay fadhiyaan waynan u sameeyo marmar qabow ay naxariis dareemaan oo kuleylka dareemin farabadan marka wuxuu ka fakaray marmarkan ay ku dul fadhiyaan ama dhulka hoostiisa aan dhigno system qaboojiye ah oo qabow ka soo baxay oo qaboojinayo dhulka oo dhan laakiin taas waxay noqotay fikrad aan macquul ahayn sababtu waxa weeyaan kharashka farabadan iyo lacagta badan ay u baahan tahay fikradaasu intuu fakaray uu baaray ayuu wuxuu ogaaday inuu Ilaahay abuuray nooc aad u yar oo naadir oo marmar cadaan waliba oo la yiraahdo tesos marmarkaas cadaanka ee tesos la yiraahdo waxyaabo cajiibka ku yahay waxa weeyaan cadceed iyo iftiin ama qoraxda ku soo dhacdo dib buu celiyaa marka xilli kasta oo kuleyl uu dhacayo marmarkaas uu qabow yahay oo maba kululaado marmarkaasna waxa laga helayaa dalka Greek waliba jasiirad ku taala Greek laba buurood ama saddex buurood ku taala ayuunba marmarkaale cadaanka Maxamed Kamaal markuu baaray ayaa tigir buu goosto Greek buu tagay shirkad qura ayaa marmarka jajabin jirto oo sameyn jirto buurta ka soo saari jirtay ku taala jasiiradda wuxuu ka iibsaday kala badhkii waxay sameysay shirkadaas oo dhan ayuu ka iibsaday marmarkii cadaanka intuu qaaday ayaa waxa la geeyay Sacuudiga marka waxa lagu sameeyay dhulka ayaa la goglay xaramka Makkiga iminka daawataan dadka aan tagin Makka aan tagin ama cumrad aan soo sameyn TV-ga waxa ka arkayaan Kacbada waxa ku wada wareegsan marmar xoog cad oo qurux badan 15 sanadood ka bacdi ay xukuumadii Sacuudiga ninkii la soo hadashay waxa ku tiri marmarkii cadaanka ee wacnaa noo keen waxaan u baahan inaan ku goolno masjidka nabawiga Madiina al-Munawwara ninkii wuxuu kuli markaa waxa la iga dalbaday xoog baan u naxay sababtu waxa weeyaan waxa ka wareegtay xilligan ka iibsaday marmarkaas shirkadda Greeka 15 sanadood intii hadheynadii kulliba way iibiyeen maxaa dhigaya intii tugur goostay wuxuu tagay Greek buu tagay ninkii shirkadda lahaaba uu tagu wuxuu ku yiri marmarkii baan doonaya marmarkii barigeena ka iibsaday cadda ee Tesos la yiraaho wuxuu ku yiri bar hore la iibiyo maxaa dhigay wuxuu yiri naxdinta naxay maalintii weligii ma naxin anigu aad u murugoona iyo xafiiskii baan ka baxay gabadhii sekreteeradii xafiiska hor fadhiday waxaan ku yiri marmarka cid iibsatay ma garanaysa waxay tiri ma garanay waqti fara badan baa ka soo wareegay anigu aad u murugaysan oo careysan ayaan tigir goos waxaan damcay inaan iska noqdo dhowr saacadood oo ka harsan dayuuradeyda ee gabadhii sekreteeradeeda la soo hadashay waxay ugu tiri kaalay waxaan ku helay shirkadii iibsatay marmarkii intii soo haray waxaan niyadeyda ku soo dhacay maxaan ka faa'iidayaa kulli waa la iibsaday marmarkii waqti dheeraad ah iyo harsana waan isaga tagay gabadhii markaan u tagay waxay ugu tiri waxa iibsatay shirkad Sacuudiyaan oo dalka Sacuudiga ku taala marmarkii harsana wuxuu ku leeyahay markaan maqlay magaca Sacuudiga wadnahayga xoog garaacay gabadhii baan ku yiri bal numberkooda iyo magacooda shirkadda isi wuxuu ku leeyahay tigidh kalan goosto Sacuudigan toos u duulay markan Sacuudiga toos u duulay markan sida airportka uga degana toos baan u tagay shirkadii Sacuudiga ahayd xafiiskii maamulahan toos u galay intan salaamay waxaan ku yiri marmarkii shirkadii Greek ee cadda ee magaciisu Tesos meeyay idinka iibsaday ma isticmaashaan mise waa haysaan
ninkiiba wuxuu ku leeyay intuu ila yaabay igu yiri bal istajiyo fadhiiso wuxuu yidhi intuu la hadlay ninka u maamulo istoodhada iyo wuxuu ku idhi marmarkii caddaankan ka iibsanay sharikadii Greeka maxaa ka hadhay ninkiiba ka mas-uula istoodhada ayaa wuxuu ku yidhi marmarkii berigaan iibsanay wixii oo dhan wuu yaalaa xabadna lagama iibin wuxuu ku leeyahay ninka injineerkee masaariga ahaa maxamed kamaal ismaaciil markan maqlay jawaabka ee sida ilmo yaroo caruuran u baroortan ooyay ninkii sacuudiyaanka shirkadda lahaba wuu ila yaabo biyuu ii keenay baxaa ku helay buu yiri baxaad la ooyeysaa baxaa dhacay sheekadii oo dhan baan uga sheekeeyey iyo sababta aan u dareemayo qiiradan iyo sababtan u ooyayo wuxuu ku leeyahay markan oohintaydii dhammaystay ninkana uu ila yaabsan sida ii eegayo ayaa buuggii jeegag ayuunban soo saarintan miiska duldhigay waxaan ku idhi nambarka doonaysid qoro ka bilaabanaya 1 riyaal ilaa milyan riyaal waxaad doonaysid qoro oo marmarkaa isi ninkii shirkadda lahaa markuu ogaaday marmarkan aan ka doonayo in lagu goglaayo Madiina al-Munawwara masjidka nabawiga ama masjidka Muhammad sallallahu alayhi wasallam uu ku aasan yahay ay intuu naxayb wuxuu yiri masjidka nabawiga ee Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam uu ku tukaday ay lacag kaaga qaata shilinka ma qaadanay marmarkaas oo dhan waa fi sabiilillah sadaqad ban u bixiyay sidii buu marmarkii uu ku qaatay ninkii oo lagu goglaynaa masjidka nabawiga ee Madiina al-Munawwara سبحان الله وشكا أدو عجيبة يعني وحيبان كيابي وحاول إلهي سدو ninka uu ilowsiiyay marmark waxa soo lacag uu ku bixiyay uu ka soo ibsaday Greeka sidoo uu ilaawi waxa soo sanado ah uu stoorkiisa uu yaalo aanu iibinin iyo subxaanallah ilaahay sidoo u fudeydiyay oo marmark inta laga keenay Greek Sacuudiga la keenay marmarkaas laba meelood uu adduunka yaala wuxuu yaala Masjid an-Nabawi iyo wuxuu yaala Haram al-Makki ayuu yaala sidii inuu ilaahay buurtaadan ee marmarka ka samaysan inuu abuuray labada meelood adduunka عبردن kala soo baxayno sheekadan cajiibka waxa weeyaan qofku haduu niyadiisu ay wacan tahay uu doonayo diintiisa ummadiisa inuu wax u qabto ilaahay xuskiisa iyo magaciisa korbu u qaada oo lama ilaawo bal ajarka labada nin u socdo bal eega qof kasto maanta ku tukanaya kacbada horteeda ku tukanaya ama umrad sameeynaya ama xaj sameeynaya ama masjid an-nabawi soo booqanay ku tukanay oo ku sujuudaya ajarkeeda waxa le labada nin ee ka fakara in diintoodii ummadooda wax u qabtaan markasta niyadiinu ha wacnaato oo ilaahay ha ku xidhnaato tadbiirka umuurtaada iyo noloshaada ilaahay faraha uga qaad taas waxay ku noqonaysaa sacaadadaada ama farxadaada adduunka iyo aakhiro